عليكم ورحمة الله وبركاته. وما هتسنتهاي ورئيسك عنا قاعدي بنجي واحد أصوب نيجي ما دام أو ثيم أو لجهلا ويا ريل استيت حقه وحصرنا ريل استيت بروجكت وحيابا صادقنا وحكمنا سفاري فيليج سدا هذا وجدت وجريو كيالو تبعها شي إبراهيم ولما نوع فيلا يو دبقة فيلا waxaa iibinaa 110 kun dabaqa waxaa iibinayna 160 kun filada waxay ka kooban tahay 5 qol 3 musqul fadhi 2 parking dabaqa wuxuu ka kooban yahay 7 qol 5 musqul maxay ahayd 4 parking iyo maxay ahayd boys quarters oo banaanka oo la deegi karo village oo waliba dhismayaasha cusub oo soo bandhigaysaan bal qaybta imika soo bandhigaysaan dadku arki karaan Safari Village oo kale waxa ugu talagaseen inuu ka mid yahay dhismayaasha cusub oo Muqdisho laga dhisay maadaama oo dadkii dibadaha ay joogeen dadka dibadaha jooga mustali standardka xaq ku soo arkeen waxay u baahnaadeen guryo qurux badan oo sidii xagga nolosha ay ku noolaayeen kaleeto inaan inta ugu sameeyno marka baahidooda aan u fulinayn maadaama dadka ay naga badiyeen guryo qurux badan oo u baahanaay iyo meel jawi degan marka anakana baahidooda waan fulinay si ay guryahaas ay u helaan noloshii ay ku haysteen qurbaha wadankooda aan ugu sameeyno mid lamid ah bal waxa iga sheekaysaa dhismaha imika soo bandhigaysaan Safari Village projectkan badnaanshaha dadka badankood ee dalbanaya waxa ku jira dad gudihii dalka ku nool Soomaaliya iyo gobolada mis waxay u badan yihiin banaanka dadka imaanaya والله waa isku jiraan dadka oo dibadda ka imaada iyo dadka wadanka jooga dadka wadanka kama yareystaan dadka wadankaaba inay lacag badan yihiin oo moodaa oo kaalintooda ay ciyaaraan oo inay la tartamayaan iska ciilamada qofka diaspora ka imaado oo gogortan iyo jijiitan laakiin dadka wadanka waxaas ma yaqaan waxay leeyihiin dadka diaspora markay imaadaan gaajiya bala imaadaan laakiin qofka wuu fiican yahay inuu xisaabtamo marka dadka oo diaspora iyo dadka oo wadanka oo degan bal localka iyo internationalka labadooda baahidooda waa filan qof kasta iyo awoodiisa ku xiran tahay ma ahan kale ina diaspora ahaato ina guriga awoodi kartid laakiin hadii oo ku siinayso awoodaada ina iibsan kartid ma sha Allah waxaan sidoo kale shamsahay waxa ku jira dhowr qaybood oo iyana kala duwan oo dhismayaashu aad u badan yihiin waxa ay muuqanaya jaziira waliba hadaan qaldaneen waa meesha la yiraahdo abay dhaxan oo aad ugu dhow jaziira iga sheekay qatan صح تنا waa project kaleeto jaziira properties laakiin dhisan ma ahan kan waa boss banaan booski wuxuu ka kooban yahay 2020 binti halkii boss waxa iibinayna 3500 marka kanna waa project kaleeto laakiin kan ma dhisna waa boss banaan kaas wuxuu kaga duwan yahay kan waa diyaarsan yahay laakiin qorshii baa socdo qofka rabtana waa loo dhisayaa qofkii sidii uu rabo oo u dhistana uu dhisa karaa waa liibi karaa laakiin Safari Village waa guri dhisan oo community oo isku wada standard marka oo engineer kalena imaaneen oo bangiga oo dhisay oo loogu talagalay inuu one design ku soo baxo one community ay tahay oo waxna laga bedelayna shaqada Safari waxa dhisay bangiga dhisayo laakiin waxa noo Muqdisho Stars waxay noo tahay real estate-ka Muqdisho Stars waa tagi doona gartay halkan maxaa ku dooratay inaad maalgelishaan waa meel si magaalada ugu baxsan oo haddana dhul qabow laakiin maxaa ku doorateen doorashadiina walaahi waxaan ku dooranay maadaama magaaladii jawigeeda oo jam iska yahay dadkana ay jecel yihiin meel iska qabo oo jaziirana og tahay meel qurux badan inay tahay dalxiis loogu tago sidaas darteed ayaan u sameeyay dad badan oo waxa jecel magaalada inay ka fogaadaan oo meel jawi degan inay degaan helaan marka hawadaas iyo maxay ahayd badda viewgaas inay iskaaga baashaalaan rabaan marka anakana baahidooda waan fulna ma sha Allah inta qorshaha marka jaziira ka rabtaan muuqu yahay sida qorshihii aad soo dabcan sharaxday Safari mise uu ka duwan yahay qorshaha oo Safari iyo qorshaha jaziira waa kala duwan yihiin jaziira waa boss banaan oo aan iibinayno regardless of qofka inuu dhista adoo rabay inuu dhaafo aday tahay laakiin tan oo Safari Village waa guri oo community marka loo hal geeda laga soo galay hagan jeel leeyahay hal darbiya u wareegsan guryahan waa isku wada mid laakiin kan qofka dooq uu leeyahay haduu rabo dhisa kana haduu rabo ayadoo banaan oo iska dhaafo kara waa gartay Shamsa oo dabcan madaxa maalgashiga bangiga caalamiga IBS sidoo kale halkan waxa muuqanaya qaybo kala duwan oo soo bandhigaysaan bal iga sheekay qaba halkan yaalo kale dadka arkaa hadaan ka bilaawno musawirka inta ku sawiran waa tartankii sanadka hore aan ugu qayb galnay tartanka sidaan oo kaleete waxaan ku guuleysanay inaan qaadano best emerging bank sanadka 2016 haddana insha Allah waan rajaynaynaa inaan sanadkaana qaadano waxyaabaha kale oo kamid ah waxa jirto microfinance waa microcredit iyo micro investment waxa kale oo kamid ah investmentiga aan dadka aan u bixino oo
iyana dabcan aad u kala duwan oo dabcan aad u kala duwan waxaa ka mid ah kalluumaysiga agriculture oo beeraha real estate oo hadda aan ka soo hadlayno oo guryaha livestock oo ah xoolaha iyo project finance waxaa kaloo ka mid ah intaad iga tegin qeybahan aad u kala duwan oo kalluunkii uu ku jiro beerashada ay ku jirto kale xagga badnaanshaha dadka dalabkooda oo aad aangelisa halkee loo badan yahay markaa fiirisid waxaa loo badan yahay beeraha beeralayda saa'id baahib oo waxay qabaan dadkii in beerihii loo kobciyo maadaama waddanka dadka laga kala cararay oo beerihii oo la falan marka dadka hadda waxay dareemeen baahi jirto in maxay ahayd beeraha lagu laabto oo waddanka wax soo saar loo sameeyo marka waxa ugu badan oo la sameeyo dadka beeralayda dhibaatooyin badan haystaan webigii oo maxay ahayd iska qallay oo maxay ahayd biyo ee lahayn maalgashigiina wuxuu u badan yahay beeraha beeraha iyo guryaha anakana waxaan ku sii darnay marka xoog waxaan saarnay kalluumaysiga sida aan ugu iibi lahayn maxay ahayd shabaqyaashii iyo waxyaabaha kalluumaysiga loo isticmaalo iyo doomaha livestock oo xoolaha hadda waa yar yahay laakiin ayadana waan bilownay marka qof kasta bilow fiican way inshallah halkaas oo kale waxa ay muuqanaya qayb kale halkaas oo iyana ka mid ah qaybaha retail banking qaybtaas oo retail bankinga waa qaybta caadiga sida og tahay bangiyaasha serviceka oo bixiyo oo normalkiska personal current account oo qof kasta oo customer oo accountkiisa hadduu wax inuu dhigta rabo hadduu lacag inuu save gasta dhaqdhaqaaq inuu sameeyo oo rabo inward and outward transfer oo qofka inuu lacag xabisho oo lacagna dibadda u diri karo lacagna soo diri karo saving account oo qofkii inuu lacag ku keedsado student saving account oo ardayda lacagahooda waxay aruursadaan ku keedsan karaan umra saving account qofkii xaj inuu aado rabo oo lacagta inuu aruursado rabo saving ku sameysanayo iyo personal finance qofkii baahi u baahan in maalgelin loo sameeyo aan u sameyno dadkana daawanaya qaarkood baa isweydiinaya dabcan bangiga IBS in uu maalgeliyo oo kaliya shirkadaha iyo dadka jeebkooda uu buuran yahay ee lacagaha haysta tam xaq jaawisa ma waxa leedahay xitaa dadka waxba aan haysan bangigu maalgeliya yes anaka bangiga wuxuu u imaaday dadka baahidooda inuu fuliyo baahida marka dadka fulinayna ma aha dadka jabka waaweyn inaan fiirno oo aan ka faa'iideysano markaas suuqa wixii ka jira dadka oo tabarta yarna waan caawinaa sida og tahay microfinance waa dadka tabarta yar oo haysan facility-ga ee bangiga ku soo gali lahaayeen ayagoo haysanin awood bangigana ay garanaynin bangiga faa'iidadiisa garanaynin ayaan waxaan u sameynay tababar si oo bangi aan ugu diyaarino anagoo microfinance siinayno waxaan ugu bilownay 500 ilaa maxay ahayd adi 5,000 waan siinaa dadka oo microfinance-ga IBS dabcan waa bangiga ee lagu amaanad badan yahay dadku ay aaminsan yihiin inay wax ay dabcan dibos dhigtaan oo ay ku keedsadaan marka laga hadlayo bandhigan oo ah maanta maalintii dabcan ee qaybaha saddexaad oo kale ilaa iyo hadda IBS muxuu ku dhawaaqay oo ah qiimo dhimis si uu ugu faa'iideeyo dadka macaamiishiisa ah bandhigan cawrada bandhigan carwada waxa aan ku dhawaaqnay qiimo dhimis inaan dadka u sameeyno especially qaybta oo maalgelinta oo discount fiican aan u sameeyno which mar hore laga soo shaqeynayay sanadka cusub oo client badan aan u soo jiidano waxaa kaloo ka mid ah inaan maanta online banking launch gareyno oo soo bandhigno waxaa kaloo ka mid ah ATM kaariyaasha marka waxyaabo badan ayaa dadka u soo diyaarinaya insha Allah waana chance ka faa'iideystaan oo noqon doona Shams waxa tahay madaxda dabcan maalgelinta IBS halkan gadaasheena waxaa jira qaybo kale oo maalgashi oo soo bandhigteen haddaan u nimaano halkaas dadka ay arkaan qaybta gadaale oo waliba ka mid ah qaybaha ugu waaweyn oo dadkuna ay arki karaan waxaa jirta in qaybuhu ay aad u badan yihiin halkan bangiga wuxuu ka mid yahay caalamiga ah IBS dabcan bangiga loogu aaminad badan yahay dadkuna ay xoolahooda ay ku aaminaan waxaanay ku leeyihiin akoono kala duwan dabcan halkan marka laga hadlayo iga sheekay waxa ka mid tahay meelaha ugu badan ee maalgashiga laga sameeyo halkan aan ka hadlayno waa maapkii ama designkii oo Jazeera Properties dhulka sida u jeedid oo isku xiran marka kan waa maalgashiga ugu weynaa oo dadka hadartan saa'id baahidooda aad ugu badneed aan hadda aan u fulinay marka kan hadaan ka gudubno hadaan ka soo hadalnay waa Jazeera Properties waa dhulkii la iibinayo oo dadka u soo bandhignay oo ahaa project cusub oo aan sanadka cusub aan bilawnay kan kala hadaan imaano waa trade finance oo kambaniyasha waaweyn aan u sameynay maadaama oo is-aamin uu jirin qofka markuu rabo banaanka inuu wax ka soo iibsado oo lagu dhahay lacagta iska soo hormari meesha oo lacagta dir lahay meesha oo lacagta oo dir lahay marka sida letter of credit waa LCL marka qofka meeshii oo lacagta oo wada dir lahaa markuu alaab Dubai ka soo gadanaya ama China
invoice-ka markii loo soo diro waxaa leeyahay boqolkiiba 30 iska soo mara ama boqolkiiba 100 soo dir lacagta maadaama uu garanaynin kambanigaas inuu alaabta soo gudbi doono qofka wuxuu codsanayaa letter of credit inaan u sameeyno warqadaasaan u qoraynaa oo damiina meesha soo dhexgalayso is-aamin darada meesha ka baxayso warqada markaa u qorno oo alaabta ay timaado markaas ayaa lacagta loo dirayaa waxaa ugu talagasheen bangiyada waaweyn ee caalamka ku yaala dadka Soomaaliyeed wax u kala qaadaya in halkaas kalsooni ay ku qabaan yes saasaan ugu talagalnay marka kalsoonidan maxaa keenayo through bank ee maraysa qofka oo sellerka oo xagga wax laga soo iibsanayo ama qofka markuu inta wax ka iibsanayo labada customer oo labada dhinacba qofka wax iibiya iyo qofka wax iibsanayo waxa u dhaxeeya labadoodaba laba bangi qofka wax iibsanayo bangigiisa soo isticmaalayo iyo qofka wax soo iibsanayo bangigiisa soo isticmaalayo kalsoonida marka labada bangiga lagu qabaa sanadkan cusub bangiga wuxuu soo kordhiyay online banking oo maanta aan launch gareynay waanu ku faraxsanahay maxay ahayd propertyyaal cusub aan keenay oo hadda Jazeera Properties iyo maxay ahayd project cusub oo guryo badan aan dhisi doono insha Allah